بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدنا beeraha TVC aad uga bogato barashada cilmiga beeraha sida u jeedaan waxaanu maanta ka hadlay doonaa qayb kamid ah ama wax kamid ah cilmiga faraha badan ee ballaaran galeyda waxaan hadda aad u jeedaan waxa la dhahaa baaldhoorka waa qaybta lab galeyda marka uu sameeynayo pollination marka waxa la yiraahdaa galeydu waxay ka tirsan tahay qaybta la isku yiraahdo cross pollination ka ama qaybteeda lab iyo qaybtiisa dhadig ay laba meel ku kala yaalin marka tan markaan dhahno waa pollination ki pollen greens ka waa waxyaabahaas ka soo dhacdhacay waxa loo yaqaan pollen greens marka intay ku dhacayaan oo qaybtii dhadig intay ku dhacayaan deedna waxa sameysmaaya baalkii ahaa sabuulkii sameysmaa sidaas wuxuu ku sameysmaa sabuulkii marka waxa weeye waa pollen greensku waa waxyaabaha yararka oo meesha hadda ku jira oo budada ayaa pollen greens la dhahaa marka waa qaybta meelka ah ee faxal sidaha marka halka markay ku dhacdo ay faxal gareynaysaa deedna waxa ka dhalanaya sabuulkii marka galeydu waa cross pollination sida daraadeed marka lagu sameeynayo hybrid ama hybridization lagu sameeynayo ama in la horumariyo la rabo waxa laga ilaaliyaa in galey kale oo loo baahnayn ay ku ag samaysanto marka ay lagu ag abuuro marka waxa waaye labada xabo oo la isku sameeynayo waxa la sameeyaa oo in la isku gudbiyo la rabo dhinaca dabaysha xigta ayaa waxa lagu abuurayaa midka oo aad ka rabto qaybtiisa labka kan kalena waxa lagu abuuray marka kan oo aad rabto in pollen greenskaas gaaraan oo qaybtan kale ay faxal garayso waxaad ku sameynaysaa baaldhoorkaad ka goonaysaa ama qaybtan sare oo baaldhoorka laga jibinaya intay ku sameynayso pollen greenskaas ay sii gaalanin marka sida daraadeed waxay noqonaysaa qayb aad u macnaha waxay noqonaysaa in labadaas geed isku cross groobaan deedna ay ka soo dhax baxo wixii aad rabtay oo ah macnaha waxyaaba loo sameeyo waxa waaye geedkaanu deegaankaanu la qabsaday oo macnaha la qabsi u leeyahay ama resistant u leeyahay ama kuleyl haato ama qabow haato kan kalena wuxuu leeyahay miro badan marka si aad u hesho geed sabuulkiisuna weyn yahay oo greens badan aad ka helayso dhulkiina la qabsan kara ayaad faxal waxa loo sameeyaa in loo sameeyo kii shay la isu gudbiyo baashiis marka sida daraadeed marka pollen greens kan waxyaabahaas ay qabtaan marka inta badan geedaha in la isku cross gareeyo geedaha cross pollination ka aad bay u fududahay marka galeydan waxay kamid tahay geedaha in lagu sameeyo kii shay horumarinta dhinaca seedka ay aad u fududahay sida daraadeed marka hadda inta badan kii sontaxti ama Somali varieties oo wadanku lahaay inay dabar go'aysaad moodaa oo hadda galeydan iyo waxaas inta lagu dhex abuuro waxa dhumar raba seedkii inay hadda kaydsantaa oo dadkaydiyeen ma ogi aniga laakiin sida hadda ay ku socoto waxa waa khatar waay in sontaxti ay dabar go'do oo meesha ka baxdo marka adowdiina waxa noqonaysaa wadan hadda dad seed aad haysanin ama waxa seed asal aad lahayn adowdii aad hormariso oo wadankaaga macnaha la qabsan karo asal ku ah waxa hadowdii meel aad hormarisaa ma jirto waxa noqonaysaa in aad dad wadan dibadeed ku xiranto oo hadowdii aad meeshaas lagu gumaysto wixii ay nimankaas ay soo hybrid gareeyeen ama ay kuugu tala galeen deedna waxa waaye qof aan xor ahayn aad noqonaysaa marka intaas baan ku soo gabagabeynayna waxaan leenahay marka seedadka hala ilaaliyo oo wax badan laga fikiro insha Allah ta'ala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.